dad muslima dhibaateeyaan ayay ilaahay markhaati beena u qabsadaan mahad beenana u mahad celiyaan oo aan run ahayn annagu mahad celin run ahaan alla u mahad celinaynaa waxaannu aaminsannahay culimadana la weydii karaa in naftooda iyo dhiiggooda iyo nacfigooda uga bannaan yahay sababtu ay tahay waa dilaha aqoonta waa dilaha garashada waa dilaha diinta waa dilaha tacliinta wax ay ku wanaagsan yihiin marka meel walba laga istaago ma jirto macluul baa loogu dhintaa deegaamada ay ku nool yihiin anugu faahfaahin badan ma gelayo sida uu sheegay guddoomiyaha degmada ayaa warbixintu ku kooban tahay ciidamo xoogga dalka soomaaliyeeda iyo kuwo boliiska hirshabeelle ama daraawiishta hirshabeelle oo ciidamada hirshabeelle ka mid ah iyo ciidanka aad soomaalidu ay u taqaana macawisleyda macawisley erey siyaasiya maaha waa erey raqiisa ciidamada dib u xoreynta deegaanka hiiraan baa la yidhaahdaa magacaasay leeyihiin saddexdaa howlgal ciidanaa meesha ka howlgashay boliiska federaalkana waa nagula jira howlgalka oo uu ka mid yahay taliyaha qaybta boliiska gobolka hiiraan waa nagula jira howlgalka iyo ciidan boliis oo la socda oo federaalina way nagula jireen howlgalka ciidamo inahaas ka kooban ayaa howlgalay khasaaraha iyo qaabka wax u dhaceenna guddoomiyaha degmada ayaa sheegay halkan inaan faahfaahin kooban ka bixinno dagaal maantay aroornimadii ku dhex maray deegaanka Bukure oo hoostaga degmada Maxaas ku dhex maray ciidamada dib u xoreynta deegaanada gobolka Hiiraan iyo ciidamada dawladda federaalka qaybta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanaya howlgal ay fuliyeen oo ay ka fuliyeen deegaanka Bukure ee hoostaga degmada Maxaas ayaan faahfaahin ka bixinaynaa insha Allah tacaala sida wax u dhaceen khasaaruhu sida uu yahay ayaan faahfaahin doonaa runtii meeshaas waxaa ka dhacday weerarkii iyo maaragtay gaadmadii iyo xoreyntii meeshaas ay ugu talagaleen ciidamada dib u xoreynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Hirshabeelle oo iskaashanaya howlgalka sidii loogu talagalay ayuu u fulay sidii loo qorsheeyay ayuu u dhacay guushii aan maaragtay ka rajaynayno ka filaynana waa laga gaaray insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa meel walba oo ay ku sugan yihiin in sidaas iyo si la mid ah in looga howlgeli doono loogana sifayn doono runtii khasaarahooda aad ayuu u badnaay maantay khasaaro baaxad badan oo dhimasho gaarsiisan ilaa 30 kor u dhaafayso iyo dhaawac ilaa 70 ah ayaa meeshaas khasaaro ayaa ka soo gaaray meeshiina waa lagu soo afjaray xeradiina waa la soo maaragtay la soo gabagabeeyay hawshii ay ka wadeen iyo mashruuc ay ka socday intaba oo deegaanka looga dhibaateynayay howlgalka hogaamintiisa waxaan ugu hogaaminayay si wada jir anagoo u socono guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte runtii waxaan leenahay howlgalkaas si sharaf leh oo qiimo badan ayuu ku soo dhamaaday qoryo iyo hub laga furtay iyo saanad laga furtay ayaa jirta oo dhowr iyo 20 aake 2 BKM iyo 2 saban oo runtii aan saxaafadda u soo bandhigi doono insha Allah tacaala maadaama xilli dambe ay tahay in maaragtay xogtii weerarkii iyo natiijadii ku soo dhamaatane in saxaafaddii la siiyo iyo bulshadii la siiyo maadaama la rabay ayaan rabnaa inaan faahfaahintan kooban idin siino wixii meeshaas maaragtay saanad military iyo hub ahay oo lagala soo wareegane dib ayaan ka soo bandhigi doonaa waxaan meel walba ugu baaqaynaa shacabka deegaanada gobolka Hiiraan ee degmooyinkan dega xoreyntii waa bilaabatay ciidamadii dib u xoreynta ciidamadii Hirshabeelle ciidamadii dawladda federaalka dhammaan ciidamada iskaashanaya howlgalkii waa bilowday horena waa u socday haddana waa la laba jibaarayaa maaragtay waxaan idinku baaqaynaa inaad soo garab istaagtaan ciidamada sidaad u soo garab istaagteen sidaa u diyaarsan tihiin inaan hawshaas iyo howlgalkaas
si dhammaystiran isula fulino u soo diyaargarooba annagana waxaan rajaynaynaa idiinna ballan qaadaynaa inaanan ka daalaynin mar